والصلاة والسلام على رسول الله. ما أنت وحفرحاد إنه إنه يندق حدقة إنه حرنتي أيحة يا إلى هنشتي جمهورية الصومال عند الله وقت إنجليزكا هي كهر أو بربرتي أو النسيب كانوا ينسيه دوري أفرت سنوات دوري صدق سنوات كبعده أنت نلصق نغني حكم كان أما تلدينا إنه ما أنت ينوصل رجع شيء إنه دي بدرسكو سمعنا حرونتا نوصل لنا ورها هي حرون قديمة oo dalalka East Africa oo dhan xarunteeda ahayd ee ayax lagala dagaalamo waxaan xusuustaa oo cagadablayga weyn markay xusuusiyay in 64kii ay diyaaradu rusheeyeen macni waxay ahayd meesha ugu muuqdheer Hargeysa kaamka ugu weyn oo ay maleeyeen inay tahay xero ciidan diyaaradii F5 ka ahaa marka ay haysatay xabashidu dagaalkii 64kii aynu isku dilay dalka qaybteena naga maqan marka waxaan u soo noqonayaa ayaxo inuu yahay dib fara badan Soomaaliland ku yahay haday tahay beeraha iyo haday tahay daaqa xoolahaba mashruucan inuu mashruuc aad inooga taray yahay waxaan xusuusanay dibtii naga qabsatay barigi dhaweed ayaxo ku habsaday dalka aad waxaynu ugu mahadnaqaynaa hay'adda FAO oo haddaan nahay xanaanada xoolaha iyo beerahaba aad nooga caawisay iyo daaqaba aad uga caawisa Somaliland maanta mashruucan inaga caawisay ayaanu aad iyo laxad uga mahadnaqaynaa waana ilaahay mahadii hadaynu maanta dib u dhis ku sameynayno oo aynu haysano gaadiidkii sida wasaaraddu u sheegtay ayax lagu dagaalamayay ee ahaa gaadiidkii dhulka iyo kii cirkaba ayadana inaga maalgelisay hay'adda FAO waa wax ilaahay lagu mahadiyo hay'adana aan ugu mahadnaqayno innakuna hadii alla yiraahdo intii itaalkeena xukuumad ahaan aynu ka hawlgallo kana hawlgali doono marka waa mashruuc ballaaran oo u faa'iideynaya xoolaha iyo beeraha iyo deegaanka intaba wax weyn taraya oo aynu cayayaanka ama xasharaadka had iyo goor dhibax xoolaheena iyo daaqeena iyo beeraheennaba aynu kaga hortageyno sidiina inay ku soo noqoto aynu rajayn doono in East Africa oo halkan laga xukumo insha Allah biidnillahi alkariim waanan u mahadnaqayaa wasiirka wasaaradda beeraha iyo mas'uuliyiinta kale halkan joogta ee mashruuca ayaga hay'addu isla kaashadeen ka soo shaqeeyay wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh